gudoomiyaha gobolka saaxil iyo isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka saaxil iyo gudoomiye ku-xigeenka golaha deegaanka degmada berbera iyo xubno ka socday hay'adda HBA ayaa maanta si wada jir ah u dhagax dhigay dhisme waard cusub oo loogu talagalay inuu noqdo waardka carruurta oo ka mid noqon doono isbitaalka weyn ee magaalada berbera waxaana dhismahan furin doonta hay'adda HBA oo kaashanaysa wasaaradda caafimaadka Soomaaliland waxaana munaasabadaasi dhagax dhigga hadallo kooban ka soo jeediyay gudoomiyaha gobolka saaxil Cali Maxamed Cilmi soo gudoomiyuhu si weyn ugu mahadnaqay hay'adda HBA oo iyadu maalgelinaysa dhismahan loogu talagalay waardka carruurta isagoo sidoo kalena maamulka isbitaalka magaalada berbera u soo jeediyay in la daryeelo xaruntaasi ayna tahay xarun muhiim ah isbitaalka waxaa maanta farxad weyn noo ah in halkan maanta ay hay'adda HBA oo ku deeqday waardkii carruurta halkan maanta ku heergal runtii isagoo meel aan munaasib ku ahayn markii hore ka samaysnaa oo waardka tiimbiga ku dhawaa iyo hooyadii dhallaanka oo isku dhow waalkii umulaa iyo carruurta soo waxa aad ugu farxo runtii hay'adda HBA waxaan aad ugu mahadcelinayaa iyo wasaaradda caafimaadkaba sida heeganka ee mar walba ay dadaalka uga wadaan gobolka saaxil caafimaadkiisa runtii aad baan ugu mahadcelinayaa isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka saaxil Dr. Cabdiraxiin Cabdillaahi Ducaale iyo gudoomiye ku-xigeenka golaha deegaanka degmada berbera Baasha Cabdillaahi Yaaqoob iyo sidoo kale xogayaha fulinta dawladda hoose Sayd Maxamed Cali oo iyaguna halkaasi ka hadlay waxa iyaguna si weyn u soo dhaweeyeen dhismaha isbitaalkani loogu talagalay waxayna si weyn ugu mahadnaqeen hay'adda HBA iyagoo sheegay in xaruntani ay xarun muhiim ah oo loo baahnaa in laga hirgeliyo isbitaalka weyn ee magaalada berbera marka hore ilaahay baa mahadle waxaan halkan maanta uga mahadcelinaynaa hay'adda loo dhisayso cusbitaalkan carruurta ee ka soo raraysa meesha aan munaasabka ahayn ayaan halkan uga mahadcelinaynaa waxaan kaloo mahadcelinaynaa in alaaleynta ka qayb qaadatay hawshaasi ee soo dhirindirisay ilaahay baa mahadle ilaahay noo suurtageliyey in halkan laga hirgeliyo waardkii carruurta oo markii hore aan ku oolin meelaan munaasab ahayn waayo waxay xisaabnaa sida uu ka dhawaajiyay agaasimaha isuduwaha wasaaradda caafimaadka gobolka saaxil waardka carruurta iyo waardkii TBda ayaa aad iyo aad isugu dhawaa runtii qof kasta oo dee caqli saliim leh uu garanayay inaanay halkan ku munaasab ahayn runtii maanta farxad weyn bay noo tahay in halkan aynu dhagax dhigayno waardkii carruurta ujeedada waardka carruurta halkan loogu keenayna ay tahay sidii loo kala fogeyn lahaa isbitaalka xanuunka qaaxada ee magaalada berbera iyo waardka carruurta runtii isku dhow ah tanna waxay sahlaysaa hooyada hadday tahay tii guulaysay iyo hadday tahay tii carruurta korinaysay inay iska warhayn karaan meel dhowna ay isugu iman karaan hay'adda HBA maadaama ay naga caawiso qaybta hooyada iyo dhallaanka runtii ay noqonayso meel isku dhow oo aan kala taganayn gabagabadiina waxaa munaasabada soo afmeeray mas'uul ka socday hay'adda HBA waxaana uu ka warbixiyay ujeedooyinka ay u hirgelinayso hay'addu xaruntaasi iyo waliba waxyaabaha ay u qorsheeyeen waardkani marka la dhameeyo dhismihiisa maanta halkan waxaan goobjoognahay inaynu dhagax dhigno waardkii ciyaalka ee Berbera Hospital waardka ciyaalka oo Berbera Hospital qayb ka mid ah ahaan jiray hadda waxa ay hay'adda HBA oo ka waday muddadan dambe mashruuca loo yaqaano EBHS-ka ama adeegyada caafimaadka dhamayska tiran si aan ugu soo dhaweyno hooyada waardkii hooyada dhinacan bidixda naga qabanaya iyo waardkii halkan waardkii ciyaalka oo isaguna aynu maanta halkan dhagax dhigayno dhinaca kalena isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka saaxil iyo sidoo kale maamulka isbitaalka weyn ee degmada berbera ayaa maanta deeq timir ah kala wareegay hooye Asad Haruun Faarax oo ka mid ah qurba joogta waddanka Imaaraadka Carabta dhalasho ahaanna u dhalatay Soomaaliland deeqdan oo ay hooye Asad Haruun Faarax ugu soo tala gashay in la gaarsiiyo xarunta isbitaalka lagu xanaaneeyo dadka dhimirka wax ka qaba iyadoona deeqdan u soo wakiishatay Axmed Maxamuud isagoo Axmed maanta soo gaarsiiyay xarunta isbitaalka dhimirka ee magaalada berbera isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka saaxil Dr. Cabdiraxiin Cabdillaahi Ducaale oo munaasabadaasi deeqda lagu soo gaarsiiyay kaale ayaa si weyn ugu mahadnaqay hooyo Asad Haruun Faarax oo iyadu isu xilqaantay sidii ay u taageeri lahayd dadka dhimirka wax ka qaba isagoona ilaahay uga baryay deeqdan in ilaahay ajar iyo xasanaad ka siiyo aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa hooyo Asad Haruun Faarax iyo Maxamed Cali oo isbitaalka dhimirka ee magaalada berbera ugu deeqay timirta 20 kartoon ka kooban
run ahaantii aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa Axmed Maxamuud oo soo wakiishay oo na soo gaarsiiyay waxaanan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uga rajaynaynaa in miisaanka xasanaadkooda uu daro halkii ay ka soo bixiyeen Ilaahay wax khayr leh ku bedelo Khalid Xasan Nuur telefishinka madaxa bannaan ee Bulsha TV Berbera